السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقيمة قايل وميل بنقطة ونيسان وخليف عبد علي وضالا بقبرتين إنه يسوق بيه برنامج وعيقرينا وبرشد الصومالية مر بكل سعودينه دعدوين كمركة تاجن برنامج كنا ما انتصادكوا أركتان عوان كنا بقوا حنقها للدورنا إن أرين ما رأيتي برشد وهذا الشيء gabar Soomaaliyeed oo uur leh oo xabsiyada Itoobiya ku umushay waxa kale oo ka hadli doona madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xil u magacaabay nin Mareykan oo cadaan ah oo xisbiga Republicaanka ah iyo khilaafkii u dhaxeeyay musharaxiinta Jubbaland intoodii badnayd soo ilaaday magaalada Dhagaxbuur oo aad qaylo badan ka soo yeerayso oo biyo la'aan ah arrimahaas iyo arrimo kale ayaan falanqeyn doonaa haddaan ku horeyno qodobkeena gabar Soomaaliyeed warar la isla dhex maray ayaa waxay sheegayaan in gabar la yiraahdo Samsam ama loo yaqaan Hani Qorraxay oo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ay xidhay ilaa iyo haddana aan la garanayn sababta gabadha loo xidhay dambiga lagu cadeeyay maxkamadda la saaray midnaba aan laga warqabin in gabadha iyada ah oo uur lahayd yacni waqti dambe ah in xabsiyada Itoobiya la geeyay oo isla mar ahaanta shalay iyo daraad midkood ay ku umushay isla xabsiyada gudaheeda arrintaas oo runtii dareen aad u badan ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato taasoo ay shacabkaasu marna ayna filaynin in ay dhici doonto isbeddelka Itoobiya ka dhacay kadib in gabar aan dambi lagu cadaynin oo markhaatiyaal haysanin oo maxkamad la saarin in deegaankeeda iyadoon lagu xukumin intii la qaado loo geeyo qowmiyada kale xabsiyadoodii oo ay gabadha Soomaaliyeed ku umusho xabsiyada kale iyadoon la ogeyn waxay ku mudanayso xabsiyada iyada arrintan iyada ayaa dad badan waxay u arkaan khayru mas'uulnimo iyo xil iska saari la'aan muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuqdooda aasaasiga ee ah inay deegaankooda ugu noolaadaan si sharaf leh ama sharciga la mariyo qofkii dambi gala oo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo xigtadiisu dambi ogyiin lagu qaado runtii arrinta iyada oo weli baaritaano badan ay ku socdaan siday wax u dhaceen baraha bulshadana aad iyo aad dadku uga dhawaaqeen ayaan aad u cambaaraynaa cid walba oo mas'uuliyadeedii lahayd waxaa ilaa hadda tan isbeddelkii dhacay ee deegaanka Soomaaliyeed ka dhacay kadib waxaa soo badanayay kalsooni darro aad u badan oo dowlad deegaanka ah iyadoo oo dad badan oo Soomaaliyeed ay maxkamadihii deegaanka ayna ka shaqaysiinayn hadday khibrad la'aan tahay ay hayso oyna sharcigii aqoonin oynan aqoonin sida dadka loo maxkamadeeyana ay bulshadii u bandhigto oo media u sheegto dhacdo annagu garsoorayaal ma haysano advokaatayaal ma haysano sharciyo ma haysano marka qofkii dambi gala federaalka u geynaa xataa dadkiina qanciyaan oo ogaadaan dadku waxa sababta halka loo geynayo sababta qofka dowlad deegaanka dambi ka galay dambigu hadday galeenba ee laga qabto ee la geeyaa sabab eelkiisii uma dhawa qaraabadiisii ma aha dhulkiisii ma aha dadkiisii ma aha waxa weeye arrimaha noocaas waa xadgudub aad u ballaaran runtii oo dowlad deegaanka ku kacayso waxaana looga baahan yahay dowlad deegaanka Soomaaliyeed inay joojiso dhaqamada ay muwaadiniin u dhashay deegaanka Soomaalida intii la qaado loo geynayo deegaano kale ama Oromiya ama Amharo ama Tigray meesha noqotaba dadka Soomaaliyeed dambi hadday galaan waa in maxkamad lagu saaro deegaankooda oo lagu xukumo xabsi la'aan hadday jirto waa in xabsi cusub oo dadka Soomaaliyeed ay ku qaadan karaan muddadii ay dambiga galeen in la furo waxaase moodaa runtii haddayn arrintan gabadha dhacdada ee dareenka badan dhalisay aan sababaheeda sii eegno
in maaragtay isdhexyaac aad u badan uu ku jiro dowlad deegaanka Soomaaliyeed kadib markii maamulka hadda xukunka haya Mustafa iyo Axmed Shide iyo madaxweyne Aadan Faarax ay u magacaabeen xilalkii oo dhan isla dadkii dembiyada soo galay ee dowladdii hore TPLF la shaqaynayay dadkaas oo ah dad arxan laawayaal ah oo nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn iyo midna aqoonin waxay arkaan inay dilaan inay dhacaan inay jaajuusnimadii unbaa sii socota yacni qof aqoon-yahana oo sharci yaqaana oo sharaf leh oo deegaankaas Soomaaliyeeda oo xil loo magacaabay aad buu yar yahay dadka la magacaabay oo dhan waa dad maaragtay hanti boob isaga jira yacni wararka iyo qaylada kasoo yeeraya deegaankaas Soomaaliyeed ayaa wuxuu noqday kuwa isa soo taraya maalin walba maalin ka dambeeya degmooyin dhan ayaa waxaa la sheegayaa guddoomiyaashii degmada loo magacaabay inay xafiiskii guddoomiyaha degmada ay ka dhigeen majlis lagu qayilo oo heesaha qaaciga ee ka yeeraya iyo maaragtay marduufka qaadka ee meeshaa yeelan ninka guddoomiyaha loo soo magacaabay inuun ahayn nin degmada iyo horumarkeeda iyo wanaaggeeda midna ka shaqaynaya mushaharka markuu helo meeshaa inuu majlis ka dhigtay oo shaah isaga cabaan oo majliska ka dhigteen oo inay jirin dowlad dabagelaysa la xisaabtamaysa dowlad marka horeeta qiimayso oo dhahdo qofkan muxuu qaban karaa deegaankan waa deegaan dadkan waa dad walba gumaysi la haray oo aad iyo aad dhibaato u badan soo gaadhay oo lasoo waxyeelayay oo lasoo xasuuqay waqtigan oo kale waxay u baahnaayeen dad lex jecel ka hayso naftooda iyo dalka iyo dadka in xil loo dhiibo kuwaasoo boogihii soo dhacay daweeya oo dadka isu soo dhaweeya isla mar ahaantaana ka shaqeeya sidii dadku ay maaragtay uga soo kaban lahaayeen oy maaragtay horumar ugu tallaabsan lahaayeen fursadana looga faa'iideyn lahaa laakiin nasiib darro waxaad moodaa in maaragtay madaxii ugu sarreeyay dowlad deegaanka keliya meesha ka maqan yahay ee dadkii kaleeto ugu dhan wada joogaan isla dembiyadii yacni kursiyadii unbaan ilaa iyo xeerkii ahayn iyo dilkii labadaas oo ah laba shay oo aad iyo aad maaragtay loogu farxo laakiin musuq maasuqii hanti lunsigii qabyaaladii maamul xumadii wada xisaabtan la-aantii intiiba way taallaan markii muwaadiniin iyo iska xil saar la-aan muwaadiniinta deegaankaas Soomaaliyeed u dhashay in qof walba sidii la rabo lagaa yeelay oo wiilka liyu booliiska ee direyska qaba ee qoriga haysta isagoo eegaya qori inuu haysto ka xoog badan yahay dadka rayidka ah ula dhaqmayo siduu doono oo uunan maaragtay sharcigii iyo broseskii iyo tixgelintii muwaadin walba inuu mudan yahay in sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisaba la ilaaliyo oo hadduu dembi galayna si aadaab leh intii loo xiro oo warqad waaranti ah loo soo gooyo oo maxkamad xukunto oo broseskii la yaqaanay dowladnimo la maro laakiin waxaad moodaa dadkaas Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato in maaragtay weli ay ku jiraan hagardaamooyinkii iyo dulmigii iyo hanti boobkii budgetkii dowlad deegaanka Soomaaliyeed ayaa gebi ahaanba maaragtay mismanagement badan ay ka dhacday taasoo cid loo xisaabiyey aan jirin maamuladii oo dhan ay ka jiraan yacni maamul xumo dhaqaale la-aan yacni lacagihii oo dhan shakhsiyaad ay jeebka ku gurteen oo deegaanadii waxba ayna ka kala soconin oo ganacsigii soconin oo yacni lacagtu dadweynuhu markii lacagta la wasaco qof walba wuxuunbaa soo gaadhay say kusoo gaadhaba haddayna isaga soo gaadhin adeerkiiba soo gaadhay eedadiiba soo gaadhay laakiin markii lacagdii guddoomiyihii gobolkaba soo dhaafi weydo ama guddoomiyihii degmada soo dhaafi weydo ama dhowrkii maamulkaas soo dhaaweysi weydo dee shacabkii dhibaato badan baa imanaysa iyo kalsooni darro waxaa kaleeto ila xogogaala oo noo warramay waxay noo sheegeen xataa deegaanka inayn waxbarasho ka jirin waxbarashadu aad u liidato oo maaragtay dadka Soomaaliyeed ee gobollada deegaanka Soomaalida dhan laba deegaan keliya in wax laga barto jigjiga gobolkan faafan iyo gobolka Diridhaba labada deegaan ee Soomaaliyeed ee waxbarasho la dhihi karo way ka jirtaa waa labada deegaan keliya dhammaan dadku waxay soo tabinayaan deegaanada kale in macallimiintu ayna shaqaynin ardaydu ayna xiiso badan u qabin sababtoo macallinku mushaharkiisa unbuu ku qaataa mooyaane inuu waxay mudan yihiin carruurta sidaan ognahayna carruurtu waa mustaqbalka dal haddaad aragto dowlad waxa ay xoogga saartaa waa ubadka soo koraya waa ubaxa soo baxaya oo tacliintooda caafimaadkooda maskaxdooda moralkooda hadda dadka Soomaalida ee qabyaaladda ku mashquulsan ee hantiboobka ku mashquulsan ee dulinimada ku mashquulsan ee jaajusnimada ku mashquulsan meel kale kamayna keenin yacni waqtigii dadkii wax bari lahaaba ka gaabiyey macallimiintii wax bari lahaaba ka gaabiyey aqoon-yahanadii maskaxdooda lama soo dhisin lama soo barin xuquuqda ay ku leeyahay waddanku xuquuqda iyaga dhexdooda isku leeyihiin hantida dadweynaha iyo hantida dowladda sida loo ilaaliyo hoggaansanka sharciga askarta laftigeeda lama barin waxba yacni waxaa dhacaysa mararka qaarkood qaylada kasoo yeeraya sidii maalin dhexdaasa
gabar yar oo qabri dahare yacni jabhadda ONLF taageerayaasheeda ka mid ahayd in loola dhaqmay si bini'aadamnimada ka baxsan oo kuwa sheeganaya oo lii booliisa ay gacanta ula tageen oo buri ula tageen oo maaragtay ay weli ula dhaqmayaan dhaqankoodii horeete arrimahaas oo dowladdu waxay ahayd runtii inay u gacan fududaato qofka gabdhaha taarget garaya adduunkan aynu ku noolnahay maanta dumar lagu xadgudbo oo loo gacan qaado waa arrin very serious waana crime aad u badan laakiin nasiib darro gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waxay noqdeen target fudud oo ragga aan raganimada lahayn ee ducufada ay aadka u liita ay gacmahoodu ku degdegaan ragga intay ka cararaan ayay dumarka ku degdegaan si ay u waxyeelayaan oo u dilaan nasiib darro sharciga gabdhaha u heelin lahaa iyo dowladdiina ay ka gaabinayso in maaragtay dowladda deegaanka Soomaaliyeed gabar uur leh oo la ogyahay inay uur leedahay oo welibana uur yacni dhow oo ah 7 bilood gaaray inta la qabto oo deegaanka laga qabto iyadoo dembi cad lagu haynin maxkamad cad lagu haynin inta la qaado in la geeyo Addis Ababa falka isaga waa fal waxashnimo ah waa fal berberiga waa fal cawaandinimo ah waxaana dowladda deegaanka iyo dhammaan aqoon-yahanada deegaankaas ku sugan ee saameyn kara falkaas dadka geystay aan ka codsanayaa in arrinta iyadaas tallaabo sharci laga qaado la caddeeyo cidda ka dambeysay gabadha in la qabto iyo sababta gabadha loo qabtay iyo sharciyadda meesha lagu geeyey intaba in la ogaado runtii haddii ay caddaato in gabadha dembigeedu uu yahay dembi saxa oo laga galay oo inan innocent tahay waa in magdhow la siiyo saynu wada ognahay dad badan baa sidaasi leeg horey ugu dhacday rayid ah in maaragtay lasoo afduubo oo uu ka mid yahay waaskii deegaanka ciideed ee Marsin oo isagoon wax dembi ah gelin oo dowladdii deegaanka weligiis arag oo Kenya qaxooti ku ah ka soo cararay oo deegaankiisii nabad ugu soo noqday inta la soo qabtay 4 bilood lagu hayo oo bishii Ramadaan ku jirto oo wax dembi isagoon lagu eedayn isagoo xanuunsan 4 bilood kadib la sii daayay wax magdhow lama siin wax raaligelin lama siin xadgudubka noocaas iyo ihaanada noocaas wax geysanaya waa dowladdii loo hanweynaa ee loo wada dabaaldegay ee shanta Soomaaliyeed oo dhan soo dhaweysay isbeddelkii la filayay in cadaalad iyo barwaaqo horseedo oo shacabka Soomaaliyeed kala badbaadiyo oo uu albaab cusub iyo jid cusub dadka Soomaaliyeed u furo kaasoo shacabka Soomaaliyeed ay ku daydaan mustaqbalka soo socda laakiin nasiib darro weli inuu xadgudubkii socdo weli inay qabyaaladii socoto weli inay musuqmaasuqii socoto weli inuu wada xisaabtan jirin dhaliilaha ka soo yeeraya deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah in baasaboorkii xitaa la leeyahay baasaboorkii shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato in laaluush laga dhigay oo dadka baasaboor ka shaqeeya immigrationka aynan ogolayn dadka caadiga ee danyarta ee baasaboorkii baahidu ka soo gashay ama ha ku soo xajiyaan ama ha ku safraan inay helaan ay adag tahay taa beddelkeedana dad lacag haysta oo meeshay rabaan ka yimaaday oo aan xaqba qaarkood u lahayn inay baasaboor helaan in laaluush intii laga qaato iyo lacaga badan in baasaboorkii la siinayo dadkii deegaanka ee danyarta ahaana aan wax baasaboor la siinin arrinta iyadana ay samaynayaan mas-uuliyiinta u qaabilsanayd ee ahayd muwaadin walba inay sharfaan oo xuquuqdiisa muwaadinimo ilaaliyaan oo ay siiyaan baahidii aasaasiga runtii muwaadino badan baa soo cawday oo runtii fariimo noo soo diray oo nagu soo diray goobaha messengerka iyo telefoonba iyo kuu dhahaya arrinta iyadaa fadlan ka hadla oo ha la ogeysiiyo dowlad deegaanka xafiiska socdaalka musuqmaasuqnimo aad u baahsan baa ka socda shacabkii hantidoodii ayaa lagu cadaabayaa xuquuqdoodii ayaa lagu inkirayaa arrinta iyadana inay dhacda maaha dowlad deegaanku xaq bay u leedahay baasaboorka inay adkayso oo kontaroolsho laakiin waa inuu jiro process qof walba garanayo oo qof walba marayo kaasoo caddaynaya qofku yahay iyo inuu xaq u leeyahay intaa markii la caddeeyo qofka in lagu ciqaabo oo lacagihii laaluush laga sii doono oo aan ahayn lacagtii baasaboorka uu ku kacayay runtii maaha marka waxaan ugu baaqaynaa annagoo fursaddan ka faa'iidaysanayna in dowladda deegaanka Soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga iyo dhammaan hay-adaha sharci dejinta inay arrimahan dib u eegaan muwaadiniinta la iska xidhxidhayo ee la dhoofinayo ee loo dhoofinayo qowmiyado kale iyo maamulo kale deegaanka Soomaalidu waa deegaan state madax bannaan weeye sharcigeedu way u madax bannaan tahay maamulkeedu way u madax bannaan tahay haddii constitutionka Ethiopia la eego waxa uu dhigayo oo ay run tahay sabab muwaadin Soomaaliyeed intii la afduubo loo geeyo Addis Ababa ama loo geeyo deegaan kaleeta ma ay jirto
hadday dhacdo baahi keentayna waxay tahay in shacabka iyo ehelkii qofkaas la afduubay loo caddeeyo. Waxaa kaleeto aan rabaa fursaddan isla xabsiyada ku dhex jirta inaan ka sheego runtii inay jiraan dad badan oo intii lasoo qabtay la iska xiray oo aan wax lagu soo xiray ayna sharci ahayn. qof walba muwaadin asaan horey u sheegnayba xuquuq buu leeyahay. xuquuqdiisuna waxaa weeye qof walba ilaa la caddeeyay inuu dembi galay oy maxkamadda xukunto waa innocent. qof walba si uu rabaa ilaahuma 1000 qof nafta ka gooyo, ilaahuma 1000 qof ceejiyo, qofku ilaa maxkamad sharci ah inta hor istaago markhaatiyaal yimaadaan caddaymo buuxda la keeno inuu dembiilan yahay la caddeeyo marka unbuu qofku dembiilan yahay. inta laga caddayna qofku waa innocent. waxaa weeye qofka marka la xirayo waa in inta aan qofka la aadin in lasoo qabanin ee hantidiisii la samayn waa in sharciyan la baaro qofkan wax lagu qabanayo ma dembi buu galay caddaynteedii waa inuu maaragtay xeer ilaaliyuhu uu dembigu ku oogayo muwaadinka waa in lasii hubiyo intaan muwaadinka la aadin oo markii dembigii iyo caddayntii gacmaha lagu hayo maxkamaddii loo tago oo maxkamaddii ay soo jarto warranty in qofkaa lasoo xiro oo markaa qofku sidaa lagu xiro iyadoo la ogyahay sababta loo xiray iyo ujeedka loo xiray. kadibna maxkamad muddo 24 saac lasoo istaajiyo maxkamad oo maxkamaddaa xukunto. haddayna isla markaa xukun ku dhacayna waa in la sheego muddada ay xukunkiisu dhacayo oo markaa isagana xuquuqna loo siiyo inuu qofku isdifaaco. waa sida sharcigu tahay. laakiin nasiib darro haddii la dhaho un maaragtay hadda beryaan waxaad moodaa in qof walbo la rabo in wax la yeelayo intii la afduuba la leeyahay federaalka qaatay oo laga dhiganayo scapegoat. yacni federaalka qaatay dowladda Ethiopia qaadatay. dowladda Ethiopia wax la dhaho ma jiraan. dowladda deegaanka Soomaaliya iyadaa mas'uulka ah nabadda, xorriyadda iyo xuquuqda qof walba oo Soomaaliya deegaanka ku nool. Ethiopia waa federal states aan shaqo isku lahayn state walbana xuquuqdeedii leh. marka ma jiraan wax la dhaho federaal baa qaatay. dowladda deegaanka dadka maamulaya haddayna dadka maamuli karin waa inay dadka hor leexdaan oo ayna ahayn dadkan waa inay xuquuqdooda siiyaan. haddayna sharcigii aqoonin maamulkii aqoonin wixii ayna qaban karin waa inay dadku u gudbiyaan. qodobka isaga runtii gabadha umusha iyo arrimaha sharciga la xiriiray ee dowlad deegaanka ka dhacaya inta ayaan maaragtay ku soo koobaya. waxaan uga gudbaynaa qodobkeena kale ee maanta wargeys ka soo baxa New York oo la yiraahdo Buvalo ayaa maaragtay wuxuu ka qoray qoraal dheer maxamed cabdullaahi farmaajo oo magacaabay nin cadaan ah oo saaxiibo ahaayeen oo ka tirsan xisbiga madaxweynaha Mareykanka ee Trump. ninkaas ayaa wuxuu maaragtay u magacowday farmaajo oo saaxiibo ahaayeen waqtigu New York joogay ee uu ka shaqeynay halkaas in maaragtay uu ka caawiyo u noqdo yacni magac u sameeyo yacni image-ka dowladda federaalka ama shaqooyin kaleetade ina kuma garanayna sababtay tahay. laakiin shaqooyinka noocaasa dadka qabta ama lobbying baa la dhahaa adduunka way jiraan. arrinta marka la yaab kale maanta inaan maaragtay arrintaa ka faalno keenta waxay tahay Soomaaliya dowlad ma aha, constitution ma laha, xuduudkeedii waa furan yahay, ma laha askar xuduudkeeda ilaalisa, waddankeeda fiisa laguma soo galo, ciidamada waddan walba iska soo galo waxay rabaan bay ka sameeyaan. xerada xalaana dowladda federaalka Soomaaliyeed ma tegi karto. madaxweynuhu magaalada Muqdisho ma dhex mari karo. markaad halkaa taagan tahay sababa image kaleeto u mashquulsho mala ceebtii baad dhex fadhidaa. xeebtii Soomaaliyeed waxaad moodaa in magaalooyin habeen gobolku markuu dhaco nalalka ka shidan Muqdisho waxaa ka badan nalal ka shidan badweynta Hindiya, taasoo ah kalluunkii Soomaaliyeed in caalamka oo dhan usoo shaqo tagay. marka farmaajo sabab uu waqtigan image Soomaaliyeed baa la raadin uu u dhaho runtii waa arrin la yaaba lacag badan laakiin waxay u badan tahay in lacag lagu lunsan doono. u badan tahay oo madaxweynuhuna lacag ku farsamayn doono u dhihi doono ninkaasaan qabtay intaa loo shubo isagana uu qaybtiisa helay oo dib ugu soo noqonayso. arrintaas oo ah runtii arrin sharci darro ah. madaxweynuhu xaq uma laha inuu wuxuu rabo iska qabto, inuu dadku rabo iska shaqaalaysto xaq uma laha, isagu shaqaba kuma laha inuu wax shaqaalayo. xaqiiqatan arrin aad looga xumaado weeye in madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed uu noqdo sida wasaaradda shaqada ee Soomaaliya ayaa xaquuqda leh inay nin ajnabi ah kiraysanayso iyo inayna kiraysanin. madaxweynuhu waxay ahayd inuu waddanka hogaamintiisa ku mashquulo, ma ahayn inuu saaxiibadiisii ay caddaanka ahaa iyo uu lacago u sameeyo oo lacagtii ummadda Soomaaliyeed loo soo tuugsaday uu ku bixiyo. awalna waxaan maqlaynay bangiga dhexe ee Soomaaliya
ayaa waxaa nin cadaan ah loo ogolaanaya. waxaa marka madaxweynaha federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo anoo ixtiraamaya aan ka codsanayaa inuu joojiyo degdegiisa aad buu u batay degdegiisu aad buu u batay go'aamo degdega oo haari ah wuxuu u qaatay yacni inuu soomaaliya tahay dukaan uu isagu leeyahay oo uu suu rabo u isticmaali karo oo wuxuu rabo samayn karo oo heshiiskuu rabo iska geli karo oo qofkuu rabo iska kiraysan karo adduunka waddamada sidaa looma maamulo jaalle madaxweyne haddii aad ogtahay iyo haddaadan ogeynba yacni adduunku wax walba waa in laga wada tashto wax walba waa in laysla ogyahay baahidana maxay tahay laakiin keliga intaas ka baxdo hadda heshiiskii aad kusoo gashay asmara aad kusoo gashay adigii abay axmed iyo afawarqi runtii ma ahayn heshiis soomaali diyaar u ahayd ma ahayn heshiis soomaali ay raalli ka tahay ma ahayn soomaaliya waqtigan xaadirka integration iyo waxaas ma geli karto soomaaliya waxay taagan tahay puntland iyo somaliland iyo jubbaland bay sasabi la-da ay midayn laadahay goormay caalam kaleeto la midowdaa qofku markuu dariskiisii iyo dadkiisii mid yihiin ee dowlad iyo dhaqan dowlad leeyahay markaasuu caalam kaleeta haweystaa hadda anagu soomaalidu waxaa muhiim u ah magaalada muqdisho see u shaqaysaa oy functioning state u noqotaa caasimad shaqaynaysa oo sharciga shaqaynaya oo booliiska shaqaynaya oo maleeshiyaadka dadka iska tooganaya ayna waxba dili karin oo ammaankii la sugayo oo argixisada la dhaafiyo oo dadka ajaanibta xaalana dukaamada iyo hoteelada ka dhistay la kontaroolo waxay samaynayaan askartan diyaaradaha wata ee maalin walba waxbaan duqaynay iyo waxbaan dilay meel walba ku leh ee caalamku soo qorayo la baaro la ogaado oo waxaan dowladda ogeyn lagu samayn muwaadiniinta soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed jaalle madaxweyne adoo taa awoodi waayey inaad isku rarto meelo kaleete iyo integration iyo waxay u eg tahay habartii xaabad qaadi weyday ee tiri maaragtay igu soo badiya annagoo kari la'aba inaan maaragtay boliisna ilaaliya oo caasimadeennii iyo dhiiggii carruurteenii haweenkeenna aan badbaadino inaan isku qaadno integration geeska african la integrate weynaa oonu mid la noqonaynaa jaalle madaxweyne arrinta iyada waa arrin khalada wey waxa weeye ka waanto waad gashay wax heshiisoo dambeetay inuu dhicin baarlamaanka soomaaliyeed waxaa kaloo rabaa arrinta iyada heshiisyada inaan ra-iisul baarlamaanka soomaaliyeed ee hadda jira waa ra-iisul baarlamaankii ugu xumaa abid ee soomaaliya soo mara runtii nimankii kale ra-iisul baarlamaanka waan eedayn jirnay laakiin saameyn unbay lahaayeen master mursal waxaad moodaa inuunan wax shaqo ah iyo wax xuquuqa iyo inuu parliamentarian yahay gudoomiye baarlamaan inuu yahay in kale u hilmaamay shaqadiisu u hilmaamay sababtu sharci dejin weeye waxyaabahan heshiisyadan ay madaxdu iska gelayso hadda soomaaliya baddeedii muran bay gashay murankaasna waxay ku gashay waxaa weeye rag iimaan kala oo waddan iyo karaamo iyo sharaf midna aqoonin yaa qalin intay soo qaateen baa dad awalba marmarsiin rabay yaa waxay dhaheen anakii kenya waanu ku muransannahay baddeeni iyagaa gacmahooda ku saxiixay kenya waxay ku duulaysa waxaa weeye soomaaliya ayay markhaati kacday oo ay tiri waaka wasiirka xiriirka arrimaha dibadda ina cabdirashiid cali sharmaakaan raalli baa sheekh shariifna go ahead buu siiyey marka dowladda soomaaliyeed baa muran baddeedii iyo shidaalkeedii gelisay hadday marka waxay leeyihin maxkamad baadina maxkamadan laftigeedana in la luusgarayaa laga yaabaa sababtoo ah waxan oo dhanna waxaa noo keenaya waa hogaamiye fudud waa madax fudud oo aan danta soomaaliyeed marna eegaynin laakiin ku mashquulsan masaalix hunguri ah oo maxaa cunaa ah iyo hanti iyagoon eegayni jiilasha soo socda iyo dhulka soomaaliyeed iyo dantiisa midnaba waxaa weeye arrintii ka dhacday jubbaland runtii waxay ahayd cashir fiican oo dowladda federaalka prime ministerka iyo madaxweynuhu ay qaateen ooy tahay inay wax ku qaataan waanu idinka sii dignay xaalka soomaaliya idinku waxaad isu haysataan dowlad laakiin dowlad ma tidiin dowlad waxaad noqonaysaan markaad dhaqan dowladeed yeelataan markaad sharcigii federaalka ahaa eed ku kala shaqayn lahayd ee waddanka dhan ku shaqayn lahaa markii la dejiyo markii baarlamaanka ra-iisul baarlamaankii iyo baarlamaankii ay u shaqeeyaan si baarlamaan ah oo madaxweynaha ay dabagalaan oy ogaadaan waxyaabaha sharci jebintu samaynayo iyo waxyaabaha saxda markii golaha sare uu shaqaynayo markaas ayaa waxaa dhici karta in dowlad ahaan laydinla dhaqmo caalamku laakiin marka idinka baarlamaankiini ka dhigteen mid yani aan shaqaynin dysfunctional ah mid aan shaqaynayn oo waxba qabanayn markaad ka dhigtaan markaad constitution aydan lahayn oo wax constitution aydan lahayn marka wax qorsho oo waddankii aad ku samata bixisaan aydan samaynin marka bulshadiini aydan la tashanaynin haddaad dacwadaan caalamku idinla dhaqo muxuu kenya maxay u timid iyo kenya maxay kan u samaysay iyo kenya maxay kan u samaysay way too late way waddanka haddaad ku ciyaarto adoo madaxweyne adoo prime ministerka maxaa diidaya in maamul goboleedka ku ciyaaro
inuu axmedoobena banooni ka dhigto danina banooni ka dhigto awaarana sidaas si le ka dhigto يعني waxa la rabo inuu sharciga ilaaliyo nidaamka ilaaliyo waa ra'iisul baarlamaanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyakii baana ku tumanaya Soomaaliya ka dhigtay dukaan ay leeyihiin iyakii baa maaragtay aan sharcigii raacaynin iyakii baan dadkii la tashanaynin iyakii baan systemkii u dhaqmayn qaab dhaqani oo u dhaqmay qaab jaajuusiin gacanta ugu jiro oo wax loo yari maan tallaabo qaadayn iyaka caruur looga soo dirayaa Turkiga sida iskoolada xamar rinju mariyaan caruurtii Soomaaliyeed qaadka majlisiyada ku cunayaan oo qaadkii iyagoo 14 jir 13 jir jidadka qaad ku cunayaan arrimaha noocaas jalla madaxweyne iyo jalla prime minister wax la qaadan kara ma gabdhihii Soomaaliyeed ee yaryara iyo wiilashii yaryara ee Soomaaliyeed intay qaad ka dhargaan oo balwado aan Soomaaliya laga aqoonin ka dhargaan yaa qolal lagu soo xareystay oo dad aan la aqoonin cid ay u shaqeeyaan oo dhaqankoodii baabiinaya yaa ku ciyaaraya waana joogtaan يعني اسلوبتي baa jirta la leeyahay booliiskii baa jira la leeyahay waxba lagama qabanayo waana loo yahay dawladdiina way taagan tahay marka caruurta Soomaalida saa u dhaqan waana kuwii mustaqbalka bari Soomaaliya noqon lahaa ee intay wax bartaan professor noqdaan wadanka badbaadin lahaa haddii kale jiilal dhan baa hoosta ka baxaya waxa mas'uulka ka ah u dhaartay inay dadka iyaga hagaan oo direction siiyaan oo jidka sax ku toosiyaan waa madaxweynaha prime minister idinka kitaabada gacmaha saaray anu ma garanayo inaa kitaab gacan saarteen inaa waraaqa saarteen runtii maalinka idin dheerinaya maan arkin laakiin Soomaali wax baabiinaya waa kitaabka beenta jalla madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo jalla ra'iisul wasaare waxaan ka codsanayaa in waqti yar baa idin haray oo hadda maanta wax ma arkin idin ka sii codsado ma jiro sababtoo waxaad qaban karteen way dhamaatay waxaad qaban karteen way dhamaatay waxyaabaha qabataan oo dhan way noognahay waxa ugu muhiimsan ee idinku amaano waa ciidanka wadanka Turkiga sabab ah qaybta ugu weyn sameeyay marka waxay ka dhigan tahay wadanka inaydan qorshe lahayn inaydan direction lahayn meesha u socotaan iyo meeshiidan u socon marar badanna waanu idinku baaqnay annaga dan qurbo joognaa oo waxaan niri maamul gobolada aad ku focus ka saaraysan joojiya muqdisho waa wadnaha Soomaaliyeed haddii muqdisho hagaagdo wadanka oo dhan uu hagaag maamul goboleed iyo waxaan oo dhan iyaga toosay haddii muqdisho toosto haddii muqdisho toosin weydo waxba waqtigaas ka dhumin goboleedna ku mashquulin hadday is dooranayaan iyo haddii is dooranayn sababtoo ninka muqdisho wax ka sameyn waayay ee muqdisho ammaankeeda suu waayay ma awoodi karo gobol kalena inuu aado Soomaaliyana wadamo badan baa degan runtii oo qorshayaashoodii wata oo dekadahoodii iibsaday oo maaragtay barnaamijyo badan baa socda oo la isku wada ku dulnool yahay caalamka TV-yada YouTube-yada ku wada jiraan oo la yiri qorshayaasha la wato China barnaamijkeeda degsatay barnaamijkan loo silfarkay degsatay jidkii xariirta ee ahayd maaragtay kii horeetay ilahan jirtay barnaamijkaas wadataa oo ilaa Djibouti iyo Soomaaliya waxay rabtaa in ganacsigeeda ugu weyn waxayna kala xaajootay Ethiopia kalamayna xaajin Soomaaliya xeebta laga ganacsanayo China ee jidka xariirta ay ku taalo looma yeerin shirkii China waxa loo yeeray waa Ethiopia weey sababtoo Ethiopia waa dawlad jirta oo yool leh oo rabta Soomaaliya inay ku noqoto hadalkii Hayle Selassie in laga dhabeeyo misminil booha waa dad bagaan oo Soomaalidu aan cawaana oo reer guuraa oo Ethiopiana marka gumaysiga baa iga gooyay mooyaan dhulku waa waxay ku meel tigmayaan hadalkiiba marka ay ka dhameeyeen madaxweynaha prime ministerka maalin walba yani sharafta Soomaalida dhulka lagu jiidayo yaa taagantiin oo idin hadlin oo idin meedi ka hadlin oo maalin walba Trump soo rabo idin afuufo oo idin dhayn isaad ku hadashaan mar haddii caalamka raadi laga caayo oo madaxweynuhu ku caayo oo ka jawaab weeyo wax jira matid sharafna malatid adigana waxa lagu la dhaqmayaa yani waxaan dawlad ahayn camal arrintan idinka sababay Soomaalidu waa dad nool xay runtii oo karti leh oo isdifaaci kara haddii arkaan madax dhaba oo daacada farmaajo wada weydin si lagu dabaaldegay maalmihii Soomaalidu ay ku jeclayd roog baa lagu dhigi jiray Sabi iyo Nairobi laakiin markii la arkay inaadan adigana meel u soconin Soomaaliduna ay ka xiiso dhacday يعني ciyalka yar baa lagu diraa mararka qaarkoodna waaba lagu xiraaba xildhibaanada Soomaaliyeed iyo wasiirada Soomaaliyeed Nairobi baa lagu xiray Addis Ababa lagu xiray baad maqlaysaa marka waxaan ku baaqayaa madaxweyne anoo ku sharfaya oo ku qadarinaya oo waxyaabaha wanaagsan ay qabateen kugu amaanaya waxyaabaha khaladayna kugu dhaliilaya sidoo Ilaahay bana farayo mas'uuliyad adag baad qaadatay Soomaaliyana xaalad adag bay maraysaa mas'uuliyadda aad qaaday fadlan si serious ummadda Soomaaliyeed kala tasho aqoon-yahano Soomaaliyeed oo hareerahaaga ma muuqdaan dad caloosha u shaqaystayaal ayaad maalin walba hareerahaaga ka sii buuxisaa oo adiga god ku sii gelinaya
iyadoo heli karto dad nadiif ah oo Soomaalinimada jecel oo degaan oo wax in la qabto jecel oo wuxuu qaban lahaa marka kuwa iyaga hareeraha ka buuxin u dhiilaa aad iyo aad waad mahadsan tahay qodobka madaxweynaha intaasan kaga gudbaynaa qodobkeena saddexaad ee maanta waxaan kaga hadlaynaa runtii khilaafkii u dhexeeyay Jubbaland saad ogtiinba Jubbaland waxaa ka dhacay ishardan aad iyo aad weyn oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland waxaa kaleeto jira musharaxiin badan oo qaarkood dowladda federaalka wadatay iyo madaxweynaha dowladda maamul goboleedka Jubbaland Axmed Sheekh Maxamed Cali Islaan taasoo foodo la isku daray runtii oo dareen aad u badan iyo abaabul aad u badan bixisay taasoo xataa Ethiopia iyo Kenya oo ahaa laba wadan oo xiriir iskaashi nabadeed uu ka dhaxeeyay oo marna ay ahayn arrimaha Soomaaliya inay isku khilaafaan markii ugu horeysay abid ay qoryo isku hor istaageen yani meesha iyada waxaa ka garanaysaan ahmiyadda dhulka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo damaca caalamku uu siinayo dhulka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed siday ahmiyad u siinayeen dhulkooda yani caalamka oo dhan wuxuu u soo jeedaa keegan Soomaaliya barwaaqada banaanka yaala dowlad walba waxay rabtaa inay wax bilqaysato oo iyadu qabsato oo iyadu qayb ku yeelato bay rabtaa laakiin kuwii Soomaalida iyagu kheyraadkoodii iyo dhulkoodii way sii xaraashayaan dekedoodii way sii xaraashayaan oo rag qeyrkooda ka xaraashayaan badahoodiina way ka sii xaraashayaan adun nasiib wanaag Jubbaland doorashadii dhacday ee maamulka Jubbaland uu abaabulay ee madaxweyne Axmed Maxamed Sheekh Islaan lagu doortay oo markii hore mucaarado badan lahaa iyo musharaxiin badan oo ka soo horjeeda ayaad moodaa in musharaxiintii ay tanaasul badan u sameeyeen kadib baaqiyo kala duwan oo ka yimid bulshada qaybaheeda kala duwan oo lagu booriyay mucaaradka Axmed in ay tanaasulaan waqtigan xaadirka xasaasigan Axmed uu saameyn badan ku leeyahay Jubbaland runtii aan la iska indhatiri karin oo aynan ahayn meel ugu soo carra xataa qof kale hadduu ku guuleysto Axmed oon garab siinin ay adag tahay sidii uu wax weyn uga noqdo sidaa darteed waxaa u badan tahay in la isku raaco in maaragtay xildhibaanadii oo dhan ay qaar badan ay la heshiiyeen madaxweyne Axmed Maxamed Islaan ahmiyadduna shacabka Jubbaland waxay u baahan yihiin maanta madaxweyne iyo dagaal iyo buuq uma baahna waxay u baahan yihiin 40 sano cusub ee la doortay Axmed Sheekh Maxamed Cali Islaan in maaragtay dowladda federaalka iyo xildhibaanada iyo musharaxiintiba in Axmed fursadda la siiyo 4 sano laakiin aan laga fariisanin dowladda federaalku ka shaqeyso sidii nidaam dimuqraadi ah oo wadanka Soomaaliya oo dhan u dhici lahaa waa in baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed uu dejiyaa xeer uu Soomaaliya oo dhan ka shaqeeyo oo qaanuunka qabyada ee federaalka waa in la dhameystiro si loo wada xisaabtami karo ilaa hadda dowladda federaalka lama garanayo sababta qaanuunkii uu sameysay yani in la dhameystiro u diiday haddii la dhameystiri lahaa waxa weeye Jubbaland iyo maamul kasta wada loo maray leedahay laakiin inta laga dhameystirayo uu qabiyo yahay inuu nidaam jirin mar walba muranka uu soo noqon doonaa waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in aynan marna xabad iyo dagaal iyo qabiil marna ayna ka dhicin Jubbaland deegaano yar baa xor ah 40% ama 50% ugu badnaan yaa xor ah 50 kale Al-Shabaab iyo fowda ku jiraan waxaan ka codsanayaa madaxweyne Axmed Sheekh Maxamed Islaan iyo maamulkuba inay 40 sano sida uu dhaqsiyaa wali sanadka ugu horeeya waa in dhulka lagu xoreeyo afartan wiil afka duuban ee jawaasiista ah ee dhexordiisa ee dadkii nolosha u diiday waa in meel la saaro yani Axmed Sheekh Maxamed Islaan kuma badbaadi doono runtii sidii horeete ma dhacayso waa lala xisaabtami doonaa meediyuhuna wuu kusii jeedaa dadkuna way kusii jeedaan haddii nidaam wada tashi ah oo dimuqraadi oo dadkoo dhan laga qayb geliyo oo fair ah oo qabiil walba iyo qoys walba iyo shakhsi walba xuquuqdiisa la siiyo deegaanka dhiman Al-Shabaab laga xoreeyo nidaam dowladeed oo soconaya baarlamaan shaqeynaya waa inuu Axmed 40 sano ee soo socoto Jubbaland u diyaariyay dimuqraadiya oo one man one vote waa in national ID oo state ay hesho oo qof walba doorashada soo socota aan la isku qabsan ee sanduuqa intimiiska la saaro qof walba codkiisa u dhiibto oo degmo walba ay doorato maamulkeeda oo nidaam cadaalad oo fair timaado haddii laakiin maamulka Jubbaland ay hadda ay sidii ay ku soo socdeen 8 sano ee hore ay dhahan waan ku sii soconaynaa mucaarado aad u badan baa ka hor iman doonta oo na aqbalayna sababta shacabka Jubbaland waxay rabaan nolol 50% inay shabaab haysto Jubbaland wax la aqbali kara maaha wax marna la aqbali kara maaha waa arrin u baahan in tallaabo degdeg laga qaado oo caruurta iyo dadka maaragtay ku afduuban xeryaha shabaab laga xoreeyo yani caloosha u shaqaystayaashaas ajaanibta u shaqeeya
ee waddanka Soomaaliya lagu soo imtixaanay waa in meel laga saaraa marka labaadna waxa weeye waa in nidaam dimuqraadi ah noqdaa oo awooddu maaragtay waa in dadku ay u dhaxaysaa oo degmo walba iyadu iskeed isu maamushaa oo degmo walba iyadu doorataa doorashada soo socoto waa in qofna aan la magacaabin adduunka in dad lasu magacaabo waa dictatorship wey waa in degmo walba xaafad walba iyadu doorataa maamulkeeda iyo xukunkeeda iyo systemkeeda indhuhuna way kusii jeedaan Jubbaland waan eegi doonaa qaabka ay u tallaabo qaado insha Allah wixii saxana waan taageeraynaa wixii khaldana waan kasoo horjeesan doonaa ilaahay hadduu yiraahdo marka aad iyo aad baan maaragtay idinku mahadinayaa xagga iyada ah waxaan rajaynayaa insha Allah Jubbaland inay maaragtay ay waa cusub u bariyo oo aad loogu baraarugo doorashada xigtana inay noqoto doorasho dimuqraadi oo cadaalad oo qof walba muwaadin oo reer Jubbaland ah uu sharaxi karo oo nidaam process oo garsoor oo cadaalad uu jiro iyo baarlamaan cadaalad runtii qof walba yimaada Axmed ama cid walba soo dhisi doono bareeshar aad u badan ayaa kori doona waa la fiiri doona qaabka u dhaqaaqaan haddii masaalixda iyo danta shacabka Jubbaland ay ku dhaqaaqaan oo horumariyaan oo dadka Jubbaland soo dhaweeyaan dowladda federaalka xiriir fiican la sameeyaan oo dhinaca fiican u socdaan waa la sii taageerayaa weli haddii la rabo mar labaad baa la dooran laakiin haddii maamul xumo iyo system xumo ay Jubbaland gasho yacni mucaarado badan ayaa iman doonta insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo marka barnaamijkeenii maanta qodobka isaga musharaxiintaas Jubbaland halkaas ugu gudbaynaa waxaa kaloo rabnaa inaan maaragtay ka hadalno qodobka ah waxaa jirta in magaalada Dhagaxbuur qaylo aad u badan kasoo yeerayso shacabka magaalada Dhagaxbuur ayaa aad u badan ka cabanaya kaasoo runtii aan la garanayn sababta Dhagaxbuur keliya ay u ooman tahay shacabka ayaa aad uga cabanaya biyo la'aan aad u badan in badan ayayna cabanayeen cabashadaas oo maaragtay aan dhig jalaq loo siinin waxaan u baaqaynaa dowlad deegaanka Soomaaliyeed inay arrinta iyada farageliso sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto oo shacabka isaga ooman sababta biyo waa aasaasiga nolosha wey biyo la'aan cid noolaan kartaa male waxyaabaha kale waxoogaa waad u samri kartaa laakiin biyo la'aan qof noolaan kara ma laha magaalada Dhagaxbuur iyo magaalooyinka kale oomanba waxaa looga baahan yahay dowlad deegaanku biyaha waa waxa ugu muhiimsan wey dhulkaana biyo wuu leeyahay runtii maamul hadduu u baahan yahay deegaanada ciidda unbaa waxaa laga yaabaa inayna biyo lahayn marka sida ugu dhaqsiyaha badan dadka iyaga in lagu gurmado ayaan ugu baaqaynaa oo biyo lala gaaro oo maamul haddayna awoodeedii lahayn oyna u birman karmin ay caalamka ugu yeeraan oo dhahaan caalamka usoo birmo dadkan caawiya ma awoodnin oo qalabkii biyaha loogu qoodi lahaa haddayda haysan inay dalbadaan in la aamusnaado maaha waana xaqdarro runtii shacabka Dhagaxbuur inay ilaa iyo inta qaylanayaan oo leeyihiin oon baan nahay oon loo birmanin oon laga hadlayn oon laga naxayn arrinta iyada arrin maaragtay la qaadan kara ma aha waxaa loo baahan yahay in maaragtay dowladda deegaanka Soomaaliyeed ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgasho oo dhammaan deegaamada oomanaha loo sameeyo booyado si rasmi ah ugu dhaamaya oo biyaha u geeya sababtoo arrin adag ma aha lacag badan ma aha in booyado dadka loogu adeego ma aha wax qaali ah ma aha aad iyo aad baan idin daawadayaasha qiimaha la idinka mahadcelinaya waqtigiina qaaliga iyo sidaad maaragtay noo daawateen barnaamijkan annagoo mar walba barnaamijyo kaleeto oo badan idiin soo wadna mar walbana ku soo bandhigi doona warar kala duwan iyo deegaanada kala duwan ee Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeedna mar walba ugu baaqayna midnimo iyo wadajir waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarta haweenka aqoon-yahanada inay xil isa saaraan Soomaaliya 30 sano ayaan waxaan kusoo jirnay qabyaalad iyo xintan iyo iswaarsi waxaa weeye waddanka Soomaaliya waa waddanka adduunka ugu qanisan weeye dhulka ugu cajiibsan badaha ugu cajiibsan webiyaasha ugu cajiibsan waxaa weeye Soomaaliya waxay ku noolaan kartaa barwaaqo iyo sharafta wuxuu noqon karaa wadamada adduunka ugu sita dadka Soomaaliyeed dad axmaqya ma waa dad beeri tabaruntii laakiin maamul xumo badanaa dadka Soomaaliyeed haysata maamul xumo haysta Soomaali meel walba ay joogto maamul xumo haysta hogaamin xumo haysta waxaan loo imanayaa hogaamiye dantiisa arrimahan hogaamintana runtii barnaamij guud ah oo sameyn doona tan iyo intaan barnaamijkan mid kale la mid ah ku kulmayno waa Khaliif Cabdi Cali oo idin leh intaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh